baxay laakiin qof kasta qalbiga iyo quluubta waxa ku jiro lama ogo runtii waxa ii muuqata Soomaali badan oo karka oo ka ah inay yihiin dad dabaaldegay usbuuca xurriyadda laakiin xaqiiqadu waxay tahay Soomaalida dhammaan ma mideysno Soomaalida ma ku wada qanacsano waxa ay yihiin balse qof kasta wuxuu u duubanayo waxay tahay waa social media inuu ka dhex muuqdo kaliya qabiil maanta meel kuma geeyo qabiil kuma geeyo Soomaalinimo ayaa ku geyso dunida kuma geyso qabiil assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh daawadayga qaaliga waqti kasta ay ku tahay wanaagsan oo wacan waa mar kale video kale aad u xiiso badan waxaan caawa rabaa ama maantadan ama isbuuca xurriyadda oo lagu jiro ayaan rabaa wax yar inaan ka taabto ama Soomaalida ayaan rabaa fariin yar inaan u gudbiyo intaan fariintan u gudbin waxaan ka codsan lahay haddii aad nagu cusub tahay page-kan follow dheh oo like garay siina share garay haddaad YouTube-ka igala socotane fadlan subscribe saare aqoonta waxaan idinka codsanayaa oo aad idinka codsanaya inta i daawanayso videogan qaybtiisa hoos waxaan idin soo dhigi doonaa YouTube-kayga fadlan subscribe i saara soona like garay videoga waa haddii aad ka heshay haddii aad ka helin marna ma kugu dhibaayo waad ku mahadsantahay daawashada qaaliga waxaan rabaa waxaan u soo galay halka kan waxay tahay inaan fariin kaliya gudbo oo fariintaas aan gudbinayo waxaan u gudbinaa waxay tahay Soomaali weyn meel kasta ay dunida ka joogto waxa ay tahay Soomaaliyay waad aragtaa isbuuca xurriyadda sidaan u qalbi nadiifsanahay sidaan u qalbi wanaagsannahay sidaan u fiicannahay sidaan kaga duwannahay dadka kaleeto sidaan dadka kaleeto aan wax u dheernahay Soomaalinimo dadnimo ehelnimo iyo qaraabanimo maantii cid kasta way banaabaxaysaa waxaan u soo banaabaxday ama isu u baxday ee banaanka u soo sagtay waxay tahay waa xurriyadeena waxay tahay qof kasta u soo baxay waxay tahay in Soomaaliya isweeshato ee Soomaali israacday ayaa loo soo wada baxay laakiin qof kasta qalbiga iyo quluubta waxa ku jiro lama ogo runtii waxa ii muuqata Soomaali badan oo karka oo ka ah inay yihiin dad dabaaldegay usbuuca xurriyadda laakiin xaqiiqadu waxay tahay Soomaalida dhammaan ma mideysno Soomaalida ma ku wada qanacsano waxa ay yihiin balse qof kasta wuxuu u duubanayo waxay tahay waa social media inuu ka dhex muuqdo kaliya laakiin taasi marnaba anaka ma suga doona taas Soomaalinimada iyo dadnimada waa quluubta ee ma ahan inaad dad social media ka dhex muuqato waxaan la hadlayo waxay tahay qof kasta oo isku dayayo inuu isbuucan boodboodo oo calanka xirto oo wuxuu doona suubiyo laakiin waxa idinka codsanaa waxay tahay Soomaaliyay sidaad u dabaaldegaysaan u soo baxdeen aad u muujisay inaad Soomaali tihiin waxaan idinkaga codsanaa waxay tahay inaad u muujisaan wixii ka dambeeyo xurriyadda isbuuca inaad muujisaan inaad tihiin Soomaali israacdi inaad muujisaan Soomaali midaysan inaad muujisaan inaad tihiin dad wanaagsan war ismuujiya yaana la muuqano kaliya xilliga xurriyadda oo kaliya la soo muuqan ee hala muuqdo xilliga saxda ee dadnimada ay jirto hala ismuujiyo xilliga u baahantaa Soomaalinimada uma baahna xilligan oo kaleeto waxaan u baahanaa waxay tahay xilliga dhibaatada jirto in la ismuujiyo calankeena korka la surto calanka kor la saarto leeyahay Soomaalinimo la muujiyo Soomaalinimo qabiil aan la isku raacin qabiilka la isku aqoonsado laakiin qabyaalada iyo qalbiga ka garin waxaan la hadlaa waa dhalinyarteen da'deen oo kaleeto waxaan la hadlaa waxay tahay qof kastoo da'du uu yahay la hadlaya waxay taas ayaan kula hadlayaa Soomaalinimada please and please akhyaarta saaxiibada Soomaalida dhammaan waxaan leeyahay sida maanta loo yahay xurnimada loogu dabaaltegayo hal loogu dabaaldego waqtiyada kaleeto hala muujiyo in la yahay Soomaalinimo qof kasta ha lagu taageero Soomaalinimadiisa qof kasta ha lagu muujiyo Soomaalinimada uu yahay qabiil maanta meel kuma geeyo qabiil kuma geeyo Soomaalinimo ayaa ku geyso dunida kuma geyso qabiil taas ayaa xaqiiqa qof kastana ogaa karto qof kastana la socoto Soomaaliyay aan isgarabsano aan isweheshano aan isla istaagno meel kastaba aan muujino inaan Soomaali sax nahay laakiinse maanta wallahi meeshan waxaan dhigay waxay tahay waa qabyaalad isbuuca xurriyadda kaliya la muujinin inaan Soomaali israacsan hala muujiyo waqtiyada kaleeto in la yahay Soomaali sax wallahi sida maanta isbuuca xurriyadda loo yahay dad israacsan hadii loo noqon lahay waqtiyada kaleeto horumar ayaan gaar lahayn maanta ninka wax dhibaato dadka ku wada dilo soo sheegi lahay ninka maanta dhibka wada hadii wax laga qaban lahay hadii qabyaalada la joojin lahay maanta ninka xilka noo hay hadduu ku dhaqmi lahay aqoon oo ku joogi lahaa maanta horumar ayaa noo noqon lahayd laakiin Soomaaliya talada ugu wanaagsan waxay tahay in siinayo hala midoobo ha laga baxo qabyaalada hala imaado Soomaalinimada
xilliga isbuuca xurriyadda sida loo dabaaldegayana waqtiyada kale ta loo dabaaldego waxaan kusoo gabagabaynaa waxay tahay Soomaaliya kor ha ahaato ha israacdo Soomaaliya yaana loo hitin cadowga waad aragtaan Soomaaliya cadow badan ayay leedahay hala kaca Soomaaliya isbuuca xurriyadda kaliya ma ahan xurriyadda ee waxay tahay waqti kasta in la muujiyo inaan xurnaanay yaana la muujino kaliya xilliga xurriyadda aan dabaaldegayno Soomaaliya ha israacdo ha guulaysato Soomaaliya khayr badan ayaan idin rajaynayaa hadduu aalid insha Allah waa mar kale video kale aad u xiiso badan